ninkii wuxuu igu noqday bay tiri nin xun oo si xun iila dhaqma, isaga iyo qoyskiisuba iimay kala hadhi jirin, mar walba waxay ahaayeen bay tiri kuwa caaya u aflagaadeeya ayay ahaayeen. laakiin waxaan dunidan korkiisa aan ku haystay meel markay ciilaan ee caayaan een ciishoodo aan ku soo farxo ayaan ku haystay. halkaasina waxay ahayd ayay tiri. qisadan waa qiso cajiiba asxaabtada qaaliga ah. muuqaalka bilow ilaa dhammaad fiirso insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. asxaabtada qaaligaan jeclahay soo dhawaada. walaashin isma channel channelkaad iga daawanaysaana waa isma channel. waxaan idin leeyahay gacan furan ku soo dhawaada. maanta waxaan idin wadaa qiso cajiib ah. intaynan qisadeenan aynaan gudagelin waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa channelka inaad subscribe ii saarto, gambaleelkana aad furato si aad iila socoto. haddaad nala sii joogteenna nala sii joog, waad ku mahadsan tahay. like-ta ii saar muuqaalka, siina share garee, wixii farin ahna commentiga insha allah igula wadaag. qisadeenni aan iska bilaabano. qisadeen waxay u dhacaysaa sida tan. waxaa beri jirtay gabadh yar oo Filsan la yidhaa oo 17 jir ah ayaa waxay tiri waxay ahayd gabadh agoon ah ayay ahayd. waxaa la siiyey nin ay ilmaabti yihiin ayaa la siiyey. ninkii ayaa ku noqday nin aad iyo aad u xun ayuu ku noqday. isaga iyo qoyskiisuba umay kala hadhin, aad bay u dhibaateyn jireen oo u caayi jireen, mar walba ayay dhibaato ku hayn jireen. waxay ahayd Filsan waxay ahayd gabadh yar oo 17 jir ah, hooyadeedna ay keligeed ay dhashay. hooyadeed waxay degeen meel aan gurigooda aan ka fogeyn, mar walba ay aflagaadeeyeen oo ay caayeen. waxay ahayd mar walba guriga hooyadeed stresska iskaga soo dejisa oo dhabta hooyadeed intay seexato ay intay u tagto ay ku seexato. hooyadeed ayay la wadaagi jirtay dhibaatada ay reerkan ku hayaan. hooyadeedna waxay ku waanin jirtay. hooyadeed waxay ahayd islaan iska xanuunsata oo duruufina ay hayso ayay ahayd. mar walba waxay ku waani jirtay inay u dulqaadato, reerkeyga ay iska haysato, ninkeedana ay u dulqaadato ayay ku waani jirtay. maadaamayn waxba u qaban karin waxay odhan jirtay hooyo iska haysa reerkaaga una dulqaada ninkaaga. waxay sidii ahaataba 10 sano waxay tiri waxaan sidii ahaadaba dhibaatadii ay reerkuna ay igu hayn jireen. waxay ila dhaqmi jireen sidii aan gabadh jaariyad aan guriga ka ahay oo kale ayay ila dhaqmi jireen. waxay tiri waxay sidii ahaataba 10 sano kadib waxay tiri hooyadii ayaa dhimatay. tii aan mar walba waxay tiri aan dhibaatadeeda aan u sheegan jiray waxay tiri soo dejin jirtay ay waanin jirtay ayaa waxay tiri booskii ka baxday bay tiri oo garabkayga midig ii banaysay. waxay tiri markii sidii ahaatay hooyadii ay dhimatay ay dhibaatadiina waxay tiri reerkii ay weli igu hayaan ayaa waxay tiri waxaan xasuustay waana ay hooyaday ay iiga tagtay oo ahayd in mar walba aan ciishoodaba aan imaado qolkeedaas aan imaado oo sijaayadeeda waxay tiri sijaayadeeda duuga ah waxay tiri soo qabso. waxay tiri 2 ragcadood ku tugo, ilaahay tala saaro, ilaahay ayaa dhibaatadan iyo dhibtan ku haysta hooy kaa saari doona. mar walba dardaarankii u dambeeyay waxay tiri hooyaday dardaarankaas ayay iiga tagtay. waxay tiri weygiiba hal maalin ayaan waxay tiri qolkii hooyaday iman jiray. waxay tiri ayaan hore waxaan kasoo qaadan jiray bay tiri caagad biyo ah amba weyse biyo ah ayaan soo qaadan jiray. waxay tiri maqsinkii hooyaday ayaan iska iman jiray. waxay tiri 2 ragcadood salaad ayaan ku tukan jiray, ilaahay ayaan baryi jiray aan odhan jiray bay tiri ilaahayow ii sikhir ninkayga reerkayga iska duwa ma jecel, ilaahay ninkayga ii jilci oo ii sikhir ayaan odhan jiray. mar walba aan ku ducaysan jiray iyo ducooyin lamid ah. waxay tiri sidii ahaataba waxaa dhacda bay tiri dad waxaa iska jira iska xumaanta shayga oo iska war badan oo dadka warka u kala qaada. ninkaygii ayaa waxaa loo geeyey war ah in qolka aan maalin weygiiba aan hal maalin tago oon maxaan ku dhahdaayey ninka ayaa loo geeyey oo lagu yiri gabadhaadu weygiiba hal maalin ayay qolka hooyadeed ee ka dhimatay ay tagtaa. bal maad ogtahay waxyaala kale malaa bilaahi ay ku qabatay nimaniyo wax ay ugu tagtaa. waxay tiri ninkii uu gebi u yaabay. waxay tiri masayr baa galay. waxay tiri wuxuu sameeyey maalin maalmaha ka mid ah ayuu qolkii kaga sii horreeyey ay tegi jirtay ayuu kaga sii horreeyey oo meel qayb ka mid ah uu kusii dhuuntay. waxay tiri sidii ii caadad ahayd baa weysadeedii baan hore u qaatay, qolkii ayaan tegey, halkii bay ku weyse qaadatay, sijaayadii
ayay soo qaadatay waxay tiri halkii baan salaadii galay aan iska ducaystay aan iska tukaday isagina wuxuu ahaa mid fiirsanaya oo khaawisaya guriga dhinac kasoo khaawisaya oo yaabanba oo islaba sheekadu sidii loogu sheegay mahooba si kale isagoo sidii u yaaban ayaa gabadhi iska dhamaystay cibaadadeedii ducadeedii ayay dhamaysatay kadibna sidii ayuu ugu soo cararay waxay tiri wuu igu dhegay hab ayuu siiyey ku dhegay halkii ayay iska dul ooyeen iyadiina way farxaday markay aragtay ninkayga uu soo jilcay aad baan u farxay bay tiri halkii ayay iska dul ooyeen halkii ayay ku tashadeen waxay ku tashadeen inay qolka barakaysan in maxaan ku dhahday ay soo degaan ay u soo guuraan ba iskaba degaan halkii ayuu ninkii wuxuu u ballan qaaday inuu dhibaato dambe aanu u geysan doonin wixii horena dhaca oo uu ka raaligeliyey kadibna wuxuu yidhi dib ay dambayso kuguma samayn doono xumaan dambe qolkana waynu iska soo degaynaa sidaas ayay ku ducaysteen sidaas ayay ku tashadeen baan u jeedaa marka sidii haataba qolkii ayay iska soo degeen aan iska soo degnay bay tiri kadibna halkii ayaan waxay tiri aan reerkayga kasii wadana aan isku faahnay dhibaato dambena waxay tiri igumuu samayn sidii ay hooyaday waxay tiri naxariistay ay ii sheegtay ayay u dhacday mar uunba waxay tiri ilaahay kuu sakri doonaa ninkaas iska haysto ayay igu odhan jirtay sidii ayay noqotay waxay tiri imika reer jir oo jooga ayaanu nahay oo dhaqan ayaanu nahay waxay tiri noo soo duceeya marka insha allah inuu wada duceyno qisadiina qiso cajiibay ahayd halkaas ayay kusoo dhammaatay asxaabteeda qaaliga qisadan iyo qisooyin badan ba insha allah waan idiin soo wadaa waxaan si sharaf leh aan kaaga codsanayaa inaad muuqaalka sii sheer garayso siina like garayso intayna muuqaal ka xiga aan iskaga iman doono waxaan idinka tegayaa sidaa iyo kulanti dambe oo xiisa leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu